السلام يا مركو هوري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركو لبعض سيدة جلال كشيغي فرحاد وين بيتاي إنان إذين إمادو إذا صوب بوغدو ogaado xaaladdiina iyo xaaladda difaac ee aad kaga jirtaan halkan warleyda muhiimad gaar ah noo leeyihiin ciidan ahaan inkastoo ciidanku dhammaantiisu muhiim yahay haddana idinku muhiimad gaar ah leedahay sababtoo ah hawsha aad haysaan iyo meesha aad joogtaan iyo cadaga oo hortaagan tihiin ee khatarta mar walba aad ku sugan tihiin ayaana siinaysa inaad tixgelin gaar idin siino inaad muhiimad gaar noo yeelataan laba ujeedo waa safarkaygu midda koowaad waxay ahayd inaan idin imaado in soo booqdo waana dabcan waa laga maarmaan in maadaama xaalad aan ku jirno xaalad dagaal aan ku jirno cadow dhib badan oo mushkilad badan oo duulaan ku ah dalka duulaan ku ah diinta duulaan ku ah iyo dowladnimadeena iyo wanaaggeena ku ah aad hor joogtaan aad har iyo hameen difaac u taagan tihiin in laydinka warqabo laydin yimaado la soo booqdo waa laga maarmaan taas taa weeye midda labaad in badan baa waxaa la yidhi maxaa jaamac looga hadli waayo jaamac waxaan uga hadli waayana waxay ahayd munaasabadda aan kaga hadli lahaa waa maanta weeye waa halkan weeye inaan ka soo diro garowga tacsi waxaa aniga igala weyn inaan imaado u imaado ciidankii madaxda u ahaa ciidankii uu hogaaminayey goobta uu ku dhintay inaan imaado oo markaa halkaa anigu aan tacsi ka diro ay weeye jaamac allah u naxariisto ilaahay naxariista jannaha geeyo gacanka khadaran baa dishay waan ognahay waxaan rajaynayaa marka sidoo kale inaanaan ilaawin inaan xasuusnaano in magaciisii iyo qadiyadda u dagaalamayey sida ay ahayd aan u garanno uguna dadaalno ayaan rajaynayaa waxaanan ballan qaadaynaa in badan oo shabaab jaamac daraadda u dhiman doonta hadii ilaha yidhahdo innada waad ballan qaadaysaan beelata axmed godana iyo yaasiin kilwa iyo ragga noocaasa wey ragga arabna inaan uga arna hadii ilaha yidhahdo taasu taa wey marka munaasabadaas waxaa weeye question bay tahay inaan imaado oon isagan halkaan uga tacsiyadayno marka waan dadaalaynaa insha allahu dalkeenna waan difaacanaynaa waan adkaysanaynaa waana ka guulaysanaynaa ugu dambeyn sababtoo ah annaga dhulkayga waan joognaa gardarre iyo weerar xaqdarraa weeye waxa ay wadaan marka annaga ka guulaysanayna annaga ka xaqle annaga ayaa kaga dhow runta diin markii la yidhaahda iyo dowladnimo iyo soomaalinimo iyo intaba anaa uga dhow marka waa aad baad mahadsan tihiin khayr baan idin rajaynaya iyo guul insha allahu مدحوين هذه بنكمل عندنا يا ري عرمو soo dhaweyntiina inaan u kala harin arday dhalinyaro haween culumo uqaal waxgarad aad iyo aad baad u mahadsantihiin mudane galan siduu sheegayna soo dhaweynta carmo mid uguba ma aha waa mid ay taariikh u leeyihiin waa mid ay lagu yaqaanay weeye marka aad iyo aad baan kaga mahadnaqaya insha allahu booqashadan aan idinkugu nimid aan halkaan ku wada hadlayno ma noqonayso tii ugu dambaysay waxaa laga yaabaa tii horreysay inay tahay laakiin in badan oo dambe ayaan isu soo laaban doonaa sidii aanu ballan qaadnay waxaa naga go-an in dadka aan dowladda u nahay dadka puntland ina doortay in aanu himradooda ka dhabayno inaanu u nimaadno inaanu la tashanno si joogtaa
إن الحالات والبيكوس جين عن كور قبله أيام بالله قاعد يضرب كذا بين دون دير هايرة Vaya,